salaamullaahi calaykum daawadayaal meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenii falanqaynta waxaana daawadayaal ku soo qaadan doonaa koox ka mid a baarlamaanka federaalka soomaaliya oo tiradooda lagu sheegay 11 xubnood oo baarlamaan oo la shaqeeya kooxaha al-shabaab lacagihii ugu badnaana u gudbiyey oo loo gudbiyay dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne ninka lagu magacaabo ra-iisul wasaare xamse oo ay u dhammaatay 100kii maalmood ee ugu horeysay iyo dhaliilo xoogan oo uga imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa dagaalo laga cabsi qaba inay ka dhacaan deegaanada somalilan kadib markii ay isku maandhaafmeen asxaabta mucaaradka iyo maamulka uu hogaamiyo corneyl biixi waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa 20 bishan waxaa la keenahayaa ciidamadii ugu faraha badnaa oo laga keenahaya dalka Eritrea qodobadaas iyo kuwa kaloo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku faaqidi doona alaaba barnaamijka ila faaqida saaxiibkay gooni oo inta badan indhaha ku hayay qodobada iyo kuwa kaloo xiiso badan waxaan daawadayaal idinka codsanaynaa in asxaabtiina la share garaysaan oo la wadaagtaan si uu muuqaalka u gaaro meel fogfog saaxiibkay faragud waa mahadsan tahay haddaan ka hormarno dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraheeda xamse cabdi barre wuxuu jiraa 4 bilood marka 100kii maalmood la sheegay waa u buuxsantay sida wararka nagu soo gaarayaan dhaliilo aad u fara badan loo soo jeedinaya maadaama oo isheega xil gudasho fiican aan laga hayno dowladda federaalk soomaaliya xukuumadda waxaa laga rabaa inay howlaha inteeda badan iyadu qabato madaxweynahana shaqooyinka asagoo kor oo ka ogaado marka hadda waxaa la leeyahay xamse cabdi barre shaqadii laga rabo mausan qabanin laakiin hal mid uu ku ammaanan yahay maadaama uusan madaxweynihiisa khilaafin inaysan hal mar asagii madaxweynaha iskhilaafin ayuu ku ammaanan yahay laakiin waxaa la leeyahay waxqabadka kale waxba kama hayo oo waxaa leeyahay waxyaabaha baarlamaanka la horgeynayo shaqooyinka la qabanayo dagaalka shabaab lagula jiro abaaraha waxyaabahaas oo dhan waa ku fashilmataa la leeyahay dowladdiisa teeda kale waxaa leeyahay waxa dadka qaar ay leeyihiin xilka laga qaado ninkii la xamse cabdi barre maadaama uu waxba qabanin laakiin madaxweyne xasan maxamuud arrimahaas oo dhag jalaq uma siinin saaxiib ayuu leeyahay xamse cabdi barre waana isku urur waana nin ay waxbarashada muddo dheer kusoo wada jireen laakiin eedaha faraha badan ee loo jeedinayo inay xukuumaddu fadhi tahay ee kasii liidato xukuumadda Rooble iyo Xasan Cali Kheyre ayaa suuqa ku jirto dadkuna waxay leeyihiin waxqabad muuqdo oo xukuumadda ama go'aan xukuumadda kiimida wax lagu meel mariyay weli ma jiraan teeda kale dagaalka ka jira ururka al-shabaab oo kacdoonka lagu hayo weli maysan u istaagin xukuumaddu dhiirigelin oo maysan samayn dhaqaalo maysan bixin meelihii oo ishaga al-shabaab laga qabsaday xataa gurmadka loogu baahnaa xukuumaddu maysan geenin inkastoo meelaha hiiraan meelo kamid ay geysay sida wararka nagu soo gaarayaan marka ninkii la xamse cabdi barre aad u fara badan loo jeedinaya shacabka Soomaaliyeed ee baraha bulshada ku jira aad ay u weerarayaan waxaan leeyihiin waa nin bullshit ku jiro oo aan waxba qabanaynin oo iska aamusan oo iska magacaaban laakiin de xil asaga magacaabanta waxna aad ka qabanayn waxba ma sheegayso marka waxay leeyihiin ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ku fashilmay shaqadii loo egmaday dadka qaarna waxay leeyihiin xilkaba ha laga tuuro yaan waqti uusan la iska lumin oo xamse cabdi barre nin ka bedelan oo ka firfircoon oo ka wax qabad badan hala keeno gooniyo haddaan su-aal kaa weydiiyo meeshaasi xamse cabdi barre 100kii maalmood ayaa u dhammaatay inta badanna qofka laguma qiimeyn karayo muddada 3 bilood ama 4 bilood ee ugu horeysa qofka laguma qiimeyn karayo marka ninkani maadaama una iskhilaafsaneen madaxweynaha xasan sheekh maxamuud howlihiina ay haatan bilow yihiin uma eka dad dana gaara leh oo dee kursiga ku socda in ay doonayaan sooma eka dadka waxay fiirinayaan maadaama ra-iisul wasaaraha uu 4 bilood gaaray 4 bilood markaa gaartid waxay qiimeynayaan in macnaha ra-iisul wasaaraha barnaamijyo badan uu sameeyey dhaqdhaqaaq uu sameeyey nin waxyaabo oo sheeg asaga soo jeediyey oo la sameeyey xukuumadda wax ay qabato muuqdo macnaha meesha sameyn saasa lagu eedeynaa teeda kale dagaalka al-shabaab lagu jiro inuu horboodo oo ra-iisul wasaaraha ama wasiiradooda ee horboodan ay ahayd teeda kale waxaa lagu eedeynaya inuusan dhaqdhaqaaq fara badanba ku lahayn xukuumadda wasiiradiisuna ay fadhid yihiin sida ra-iisul wasaare xamse fadhid u yahay wasiiraduna inay fadhid yihiin marka waxaa leeyahay ra-iisul wasaare Rooble oo kale dhaqdhaqaaq ayuu lahaa xukuumaddu waxyaabo badan ay samayn jirtay meelo la dhisay tagi jirtay maxaa la waxyaabo badan oo dhaqdhaqaaq ay samayn jirtay waatii maxamed Abdullaahi Farmaajo iska hor imaadeen waxyaabo la isku qabsaday oo rag la magacaabay rag la diiday waxyaabo xukuumaddu go'aano badan ay samayn jirtay Kheyre oo kale sidoo kale asagana ciidankii waa dhisay oo dhaqdhaqaaq badan sameynayay oo isheeg fingerprinting waxyaabo la yiraahdo dadka loo sameeyay ciidamada diiwaangelinta loo sameeyay oo dowladdiisa hawada Soomaaliya ku soo celisay magaalada Muqdisho oo maxaa leeyahay rag fara badan hadda ciidamada electric jira xataa ciidamada loo qaaday waagaas loo qaaday marka dhaqdhaqaaq fara badan ka jiray maxaa la deen cafintii oo kale wax badan ay ka qaadatay marka xukuumaddan waxaa leeyahay waxa shaqo ay socoto madaxweynaha ayaa wado marka ra-iisul wasaarahuna uu ka aamusan yahay madaxweyne waa yasman camal marka yasman taas la diidan yahay moogiye waxa hadda khilaaf ay dhexdooda ka jira ma jiro ninka la dhaafo faragudub aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhanka kale haddaan u leexano waxaa la sheegayaa in 20 bishan la keeni doono ciidamadii ugu faraha badnaa ee ku sugnaa dalkaas Eritrea maxaad iyada macluumaad ka haysaa
ciidanka eritrea muddo fara badan ay halkaas jireen, marka ugu dambeyntii waa laisku afgartay in lasoo celiyo. marka dufcadda ugu horeysa ee ciidanka eritrea ka imaanaya ee waxaa laleeyahay waxaa lasoo qaadi doonaa 20 bishan hadda aan ku jirno, kii dambena mar ka dambeysa qayb ayaa loo keeni doonaa. marka shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan in ciidanka eritrea mar lagu soo celiyo Soomaaliya oo ay la midoobaan reerahooda oo 4 sano ay ka maqnaayeen. marka farxad ayay muujinayaan shacabka Soomaaliyeed maadaama ciidan 4 sano iyo dheeraad ka maqnaa Soomaaliya lagu soo celinayo dadkooda iyo waalidiintooda dib ula midoobayaan. farxad weyn ayay muujinayaan. marka xashin maxamuud arrintaas aad lagu amaanaya maadaama uu ka dhaweeyay in ciidamada soo celinayo. wararkan waxay sheegayaan 20 bisha in ciidamada ugu horeeya imaan doonaan, kuwa kalena ay mar ka dambeyso saas ku imaan doonaan, la iskuna afgartay in ciidamada dib loo soo celiyo. waxaa jira gooniyo weli kamaynaan dhex bixin koonfurta Soomaaliya. waxa aadan barnaamijkeena aan kusoo qaadanay sidii hordhac ahaydba in 11 ka tirsan xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya lagu helay inay wada shaqeyn xoogan leeyihiin kooxda Al-Shabaab, lacaga fara badan ay u gudbiyeen. arrintaasi maxaad faahfaahin ka haysaa? horta xildhibaanada Soomaaliyeed waxaa leeyahay aad ay u badan yihiin ururka Al-Shabaab ana akoonadooda ay isticmaalaan dhaqaalana way u diraan oo mar walba waxaa leeyahay xataa mushaaraadkooda lacag ka jarayna u diraan. marka waxaa leeyahay laba nin ma ahan xildhibaanada federaalka, waa xildhibaanada Hirshabelle ay ka tirsan yihiin, waa xildhibaano laakiin Hirshabelle u diiwaan gashan yihiin. 9 nin oo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay u diiwaan gashan yihiin, waxaana ugu horeeyo hormuud oo xildhibaanada isku aadiyay in la yiraahdo Amin Jesow, kaasoo asaga saaxiib dhow ah ururka Al-Shabaab, lacagtana ay macnaha si toos ah akoonadooda ugu dhacdo. 2 xildhibaan waxay ka tirsan tahay Koonfur Galbeed, 2 xildhibaan kalena ayagana waxay ka tirsan yihiin Galmudug, xildhibaanada intooda kale tan waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka ay ku kala jiraan oo qaarkood Puntland iyo qaarkood Jubbaland way ku jiraan. marka wararka waxay sheegayaan in 11 kaas xildhibaan ay si toos ah macnaha dhaqaale u siiyaan ururka Al-Shabaab, akoonadoodana la isticmaalo lacagaha Al-Shabaab ay marsiistaan. marka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha NISA iyo dowladda madaxweynaha uu hogaamiyo inta waa loo gudbiyay, gacanta ayayna ku hayaan, go'aanka ay ka gaari lahaayeen ayaga ay u taalaa ninka la yiraahdo Fargodow. gooniyow ma laga yaabaa marka xildhibaanadana maadaama la rabo in la baas mareeyo sharci ah in ma garanaysa la dagaalanka argagixisada ah oo dhawaan la doonayo in la horkeeno baarlamaanka, arrintan oo muddo badan ay dadka qaanuunka iyo xeerarka caalamiga ku takhasusay ay tilmaamayaan haddii la baas mareeyo qaanuunkan in ma garanaysa wax badan uu ka bedeli doono oo aan xataa xasaanada baarlamaanka aan lagu gaban doonin oo qof walba oo lagu helo ma garanaysa inuu xiriir la leeyahay kooxaha Al-Shabaab in ma garanaysa talaba sharci laga qaadi doono. ma laga yaabaa marka 11 xubnood in dhawaan haddii la baas mareeyo sharcigaasi la horkeeni doono maxkamadda? aad iyo aad loola socdaa arrintaas hadii la hirgeliyana wax badan ayay taraysaa. nin dembi galayna xasanad ayuu haystaa, ma soconayso. xasanadu waa wax muhiim ah oo in lagu gambado ma aha. marka wararka waxay soo tarayaan in mar dhow madaxtinimada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo cadeyn sameyn doono, kala cadeyn doono raggaasna in laga yaabo in xasanada laga qaado oo banaanka laga dhigo, sababtoo rag loo cuskan karo in argagixisada la shaqeeyaan waaye. marka mar haddii argagixisada raadkeeda lagu arkana adigu waxaa baraka malid meel aad adduunka ku noolaan kartidna ma lahan. marka inta farta hadday kusoo gasho oo ku dhamaatay, waxaan u maleynayaa in tilaabo sharci laga qaadi doono. aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyow. dhanka kale haddii aan aadno deegaanada Somaliland, waxaa jirtay in 13 bishan November aan ku jiro ay ugu eedayd 5 sano guuridii kasoo wareegatay xilligii loo doortay Cornel Biixi deegaanada Somaliland inuu ka noqdo madaxweynaha. haddaba waxaa jira in war-saxaafadeedyo asxaabta mucaaradka ay qabanayaan, dhankan kalena dowladdu ay u jawaabaysay, laguna eedeeyey gudoomiyaha xisbiga ama musharaxa xisbiga wadani in uu ma garanaysa ugu yaraan ilaa iyo 30 nin oo hubeysan oo ku haysta gurigiisa, dowladuna ay ka baqayso haddii ay weerarto in ay arrintaasi ay dhacdo ma garanaysa inuu dagaalo beeleed meeshaas isu bedelaan. haddaba maxaad warkaysaa arrintaas? horta dagaalada dhaco waa laga baqayaa, laakiin xisbiga wadani oo xogeeyada joogtada ayaa aad u hadlay. marka wax oo hadda ay sheeg macnaha ay soo kordhinaysa ma lahan, laakiin wuxuu sheegay dagaal inuu qarka u saaran yihiin maxaa la yiraahdaa Somaliland, taasoo oo la leeyahay in 30 sano la soo dhaafay in macnaha ay abaabulayeen inay ka hortagaan sheeg in dagaal dhaco. laakiin hadda wuxuu dhahay Somaliland xaalka ay ku jirto aad ay u xun yahay, dhibaato aad u fara badan ayana macnaha keenaysaa. marka waxaan dhici karto in dagaal uu dhaco, waxaana burburka ayaana ka baqaynaa uu dhahay, burburkaasna waa in laga hortagaa. marka xogeyaha joogtada xisbiga wadani ayaa soo jeediyey in laga hortago dagaaladaasi, dhibaatada ka dhacdana maxaa la dhahaa Somaliland aysan wax dan ugu jirin ummadda Soomaaliyeed. haddana wuxuu dhahay sida wax ku socdaan aysan wax wanaagsan ahayn. teeda kale wuxuu dhahay waa mar walba waxaa dhici karto inuu dagaal dhaco, sida hadda wax ku socdaan haddaan waxba iska bedelin dagaal ayaa laga baqayaa. ugu dambeyntina guuldarro inaan ku dambeyno ayaan ka baqaynaa oo burbur siyaasadeed iyo dagaal sukay aan galno.
gooniyow waxaan rabaa maadaama soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ma laga yaabaa in korneyl biixi uu tanaasulo asxaabta mucaaradka taasoo laga yaaba in deganaanshihii iyo nabadii ay kusoo noqoto deegaanada somalilan niyahow taas uma badno biixi asaga sidiisaba dantiisa ayuu fiirsanayaa wax danoo ka leeyahayna malaha in somalilan ay degto inuu asaga xil hel ayuu wax walba ka jecel yahay marka u malaymaa muuse biixi inuu ogol yahay in wadahadal la galo la wada fadhiisto waqtigana lasoo koobo doorashadan la galo asagu diyaar uma aha mucaaradkuna sidaasoo kale diyaar uma aha marka qallaasaha iyo fowdada waxa keenaya waa midaas ciidamo fara badan ayna haystaana laleeyahay oo nimanka la yihahdo mucaaradku ay isku hubeynayaan kadibna laga yaabo inay dagaal xataa geystaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaada daawadayaal intaan dib dambe ugu kulmayno mid kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo